waxaa la arki jiray qof jagada uu hayo title-keeda loogu yeero. Baryahan waxaa dhacday oo aan aragnaa dad isugu yeeraya title inay shaqo ku lahayn sida guddoomiye, ogaas, xildhibaan iyo kuwo kaloo la mid ah. Haddaba maxaa keenay qof jago uusan hayn in magaceeda loogu yeero? kulanti wanaagsan dhammaan dhageystayaal, waa barnaamijka danta dadweynaha oo aan kusoo qaadano arrimaha hadalhayntoodu badan tahay, sidoo kalena kusoo casunno aqoon-yahano iyo indheergaradka bulshada. Barnaamijka waxaad kala socotaan waa raadiyo Danjir, codka bulshada Soomaaliyeed oo kasoo gala mawjadaha dhaadheer ee kala ah 92.7 iyo 98.3 WCRS FM toddobaad kasta saacadu markay tahay 3 galabnimo. waxaad kaloo si toos ah uga dhageysan kartaan wcrsfm.org, Danjir podcast iyo baraha bulshada. maanta waxaa marti inoogu ah Dr. Qaasim Xirsi oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ka hadla arrimaha bulshada. warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyada arrimaha bulshada kala soco Danjir Radio. Danjir Radio hoyga wararka dhabta ah iyo isha xaqiiqada dunida. Dr. Qaasim, kusoo dhawow barnaamijka danta dadweynaha. waan kusoo dhowahay Basra, maasha Allah, waa hersare. waxaa baryahan batay taytalada aan jirin ee la isugu yeerayo. qof aan jago xildhibaannimo hayn oo xildhibaan la leeyahay, mid aan ugaas loo dooran oo ugaas la leeyahay, iyo taatalo kaloo fara badan. maxaad u malaynaysaa waxaa arrintaas keenay? wallaahi waxa weeyaan dhaqankan horta waa dhaqan ka mid ah dhaqan xumo iyo fikir xumo baryahan dambena soo gashay, balse kuwa nagu sii ballaaran ayay ka mid tahay. waa jirtaa ummadda ilaahay, waa qofku jago wuu jeclaan karaa oo siyaasad wuu damci karaa, laakiin annaga qaabkeena hadda waxaa ka muuqata qofkii inuu jago siyaasadeed helo ma ahane ma joogi karo, magaciisana kuma kalsoono hooyadiis u bixisay. marka waxaa ka mid ah hadda haddaan marka tusaale arrintaa ku cadeeyo, kasoo qaad waxaad tagtay koonfurta Soomaaliya, Muqdishoaad tagtay, kasoo qaad magaalo madaxda Soomaaliya Muqdisho markaad tagtay, dadku markay isu yeerayaan ama isla hadlayaan u fiirso, waxay oranayaan qof baa meeshan qofka la raba inuu la hadlo, war Maxamed, war Cabdi, soo inuu dhaha maahan, ma dhahayo. waxa uu leeyahay guddoomiye ii waran, agaasime ii waran, xog haye ii waran, wasiir ii waran, madaxweyne ii waran, maxaa taliya ii waran, ugaas ii waran, nabadoon ii waran. saasa leeyahay qof kasta oo jooga marka Soomaaliya waxa uu magaciisa waxa ku lamaansan jago oo la leeyahay xildhibaane heblow. waxa la leeyahay waa arrin qalad aad u weyn marka taasina, oo qofkii ka dilaysa kalsoonida inuu magaciisa kaliya oo sheegto. waxaa ku xigta oo kale la mid ah doctor professor. aniga waa tirada doctor professor, laakiin waa shaqadeedii waa ahay. laakiin qof kasta oo Soomaali jooga marka waxa la leeyahay ama doctor ama professor ama maxay tahay intii hadda aan soo sheegay oo dhan. waan aragnaa dhaqankaas inuu jiro weliba aad ugu soo badanayo bulshada gudaha iyo dibadda, dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. laakiin maxaa keenay in la adeegsado taytaladaas oo loogu yeero qof aan xil loo dhiiban ama aanan jago hayn? sidoo ku bilowday dhaqankaas baa is leedahay adiga? wallaahi waxa ugu weyn oo keenay waxaan is leeyahay marka horeeto waxay ku bilaabatay qof inuu qof qiimeeyo, qofku inuu qofka kala qiimeeyo. laakiin hadda waxay u muuqataa qofna marka uu taa dhahayo dadka qaarkood waa jees bay ka tahay, dadka qaarkoodna waxay tahay qofkan maanta aad wax ka shaxaadid ka tahay, qofna waxay ka tahay xoogaha kaa raalli ahaado. marka wixii oo dhan waxay isla noqotay qofna waxa uu is leeyahay adiga hadhow asna sidoo kale ha ku dhaho. wixii oo dhan waxay noqotay afka ka dheh oon keliya, laakiin dadkii ma oga. markaa qofkan generaale waa la leeyahay, taliya generaale bababa. marka saqiir iyo kabiir jagooyinka waxaa laga bilaabay generaal kow, waxaa laga bilaabay professor, waxaa laga bilaabay madaxweyne. marka wax ka hooseeyana ma jirto. sideedana jago qofka in loogu yeero waxa weeyaan waa marka shaqo ay tahay, shaqadeedii lagu jiro.
hadda adiga waa marka ay wareysanayso markaa magacayga professor ka hormariso macnaheedu waa shaqaan ku jirnaa, waa arrin shaqo. laakiin marka dariiqa la marayo magacayga caadiga qaasim xirsi faarax in ay dhahdo saasoo kaleta yaa habboon. waxaa la mid a ereyga siyaasi oo asna isticmaalkiisu batay baryahan. waxaa jirta waa run hebel siyaasi baad maqlaysaa. siyaasi macnihiisu marka sidaas ma ahan. kelmadda siyaasadna sidaan u naqaano maba ahanba sida loo badan yahay. dad badan oo yaqaan waa jiraan. siyaasaddu waxa weeyaan saasa suusa waa la dhahaa carabiga, waxa weeyaan waa wax suubin, waa wanaag samayn weeye siyaasaddu. laakiin wax khiyaanid baa annaga u naqaanaa. usib ficlan waana sidaasba sida hadda Soomaaliya ay ka socoto, waa midba midka khiyaaneeya siyaasadeeyaa la dhahaa. wuu khiyaaneeyey wixii qalday, taasaa ah sidaan u naqaanaa. sidaa darteed ayadii oo xumaan aan u naqaan baa haddana ammaan ka dhiganaa. waxaana qofka marka siyaasi la dhahayo tan kale oo qeexideeda caadiga lagu samaynayo, siyaasi waxaa la dhahaa qofka siyaasadda soo bartay oo siyaasadda taxliil ku sameeya, dhiraandhiriya, oo macnaha soo saadaalin kara ama odorosi kara 5 sano ka bacdi 50 sano ka bacdi sida ay siyaasaddu halkaa noqon doonto, bisha soo socota siday noqon doonto. qofka si odorosi kara marka uu kadib isku darsado dhacdooyin xisaabeed isku darsado, qofkaas baa la dhihi karaa qofka siyaasiga ah oo siyaasadii yaqaana. ha ahaato qaar way jiraan marka kusoo gala qaab waxbarasho ayoon kusoo gelinin, qaab khibrad ahaan oo qofkan muddo ku dhex jiray siyaasadda oo sidaa ku gaari karayna way noqotaa. laakiin hadda annaga waxay tahay qof kasta oo macnihii asagoo afkiisa ka yiraahdo waxbaan rabaa, ama qofkii maalin ka daba ororta meesha, waxa weeye waa siyaasi. arrinta kale oo aadka looga yaaban yahay waxay tahay maxay noogu badatay jaceylka aadka ah oo loo qabo jagada. inkastoo bini aadamku sidiisaba madaxtinimada ama jagada aada u jecel yahay, haddana waxaa moodaa inaan annaga kaga dheerayna dadyooga caalamka intooda kale markay noqoto jago ama madaxtinimo. jaceylkaas aadka u badan maxaa keenay baa u malaynaysaa? jacaylka jagooyinka loo qaban waxaa sababaya dhowr nooc. waxay tahay midda ugu horeysa, dadka Soomaalidu waa iska faan jecel yihiin. midda labaadna waa hunguriga. waxaan u fahamnay ilo dhaqaale in ay tahay jagadu, oo marka qofku jago helo in uu wax dhaco ay tahay. macnaheedu xaaraan doon baan nahay, xaaraan doon ama oo xaaraan ku naaxnimo ah baa qofkii raadinayaa. qofka badanaa inta Soomaalida jagooyinka raadinaysana waa intii aan xaqa u lahayn, oo waxay tahay dad garanaya waxa ka horeeya oo ay meesha ka doonayaan iyo waxa dhib yaalla oo ay xallin doonaan midna ma muuqato. laakiin waa adiga meesha kasoo dhexbax, ama in hebel ree hebel ha kasoo dhexbaxo meeshaas, intaasaa laga rabaa. idaacadaha laga sheegsheegaya iyo waxyaalahaas. waxaa habboonaan lahayd in la yareeyo ama liifada loo gaabiyo ka hadlidda dadka jagooyinka ayaa laga hadlahayo, si qofkiiba markaas loo kala saarin. waayo maanta annaga hadda qurbahan joogno, waddankan Canada maanta aan joogno, Justin Trudeau oo ka madaxa, haddaad Ottawa tagto meesha uu degan yahay hotimartika u dhow haddaad tagto, subaxii wuu kusoo marayaa isagoo halkaa socdoo koombadiisa wata kofeega ah halkaa wata ayuu keligii soo marayaa. lug buu ku tagaa xafiiskiisa. haye waana ra-iisul wasaaraha Canada oo waddanka adduunka ugu ballaaran dhul ahaan, dadka ugu qaalisan oo G7 ku jiraan, maan G7 caaradkooda ah. haddaa aragto Norway, waxaad arkaysaa wasiiradii iyo kulli basaska kula raacaya iyo tareenka. maxay tahay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska baaskiil buu qaataa, waa la arkay. intaasoo dhan wadamada adduunka si heerkaasi ka joogaan. lama kala garanayo qofka madaxda ah iyo qofka kaleeto. dadka maqaayadda la isugu soo galaya waa la isla noolyahay. heerkaas inaan gaarnaa la rabaa. see lagu gaarayaa? waxaa lagu gaarayaa kow, waxaan maanta oo dhan qofka in idaacada laga sheego oo laga boonbooniyo iyo ah taas in la yareeyo, oo qaabab kale wax loo sheegaa jira. waa midda kaleeta ee waxaa jirta qofkan in qaabka dhaqaalaha oo baabuurtan ka daba ordisay shaqaalahan iyo waxaan oo dhan in ayagana la yareeyo ilaa xad oo lasoo gaabiyo. waxyaalahaasaa looga hortagi karaa. waxaa leedahay buubuuninta la buubuuninayo haddii la joojiyo arrinta way xalismi lahayd. midda kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, maxay jagada sideedaba u kala fogeysaa dadka shacabka jagada loo hayo iyo madaxda? sidaan ognahay in markii qof jago sare uu qabto aad uu dadka uga fogaadaa,
meesha sidaa sheegtay madaxda dowladaha horumaray ee dadkooda soo dhex galaan? waxaa keenaya waa marka ugu horeysa waxaa nagu jira dhaqan carbeed. dhaqan carbeedkuna waxa uu mar walba ku salaysan yahay qofku inuu xukun hayo oo dadka kale u gumaysto. dhaqankaasa uu ku salaysan yahay oo kulli boqortooyooyinkii soo maray carabta waa la yaqaanaa. waxa weeyaan waa wax ku dhisan xukmul istibdaad af carabiga la dhaho dictatorship system ah. qofkan waxuu samaynayaa waa madax, asaga iyo qoyskiisa ayay inta kale addoon u yihiin oo dhaqaalahooda dhacayaan oo baabi'inayaan oo saas ku wadanayaan. taasaa firkeenna ku jirtay kow. waxaa jira marka dhaqanka carabta waa iska taqaanaa taariikhdoona haddii dib loogu noqdo waxaa ciidaas ka ah afka ka ah nin boqor soo noqday oo aan ama aabihii dilin ama wiilkiisa dilin ama walaalkii dilin waa yaryah. waa dadka noocaasa. hantida ummadana waxa iska daldalanayaan. markay iska daldashaana dadku waxay dhahaan hebel nin fiican buu ahaayo wuu gacan furnaa, dadku waxbuu siin jiray. isma weydiinayaan lacagta uu siinayo xaggee ka keenay ninkaan yaa isaga keligiis qasnad u furay. waxa weeye lacagtii ayaga uu ka qaatay ka dhacay iyo wax ka bixinayay uun intaas ma garan karaan. ilaa haddana tii baa noo socoto hebel maxaan ka faa'iidnay wallaahi mar baa loo tagay oo magtii buu bixin waayay baa la leeyahay. ma ninkaasaa saxsan mase ninka ku aadaynayo wax kale? madaxweynahaasaa saxsan. sa asaga jeebkiisa waxa ku jiray oo uu awoodo keliya u baxshay. waxa kaleeta hadduu taabto waa hanti dowladeed. waxaa ku xigay dowladdii kacaanka markeedii hore saasay u fiicnayd, laakiin markii dambe oo baqdin soo gashay oo madaxdii in la dilo ka baqayaan mid walba dhowr baawur baa daba socotay oo hore socotay. wixii baa waxaa kasii dambeeyey haddana qabqablayaal dagaal oo maxay tahay iyaguna jaantaan rogana la arkayo. dhibkaasaana haysta horta ilaa hadda wixii baa nagu socdaa. laakiin hadda waxaa la joogaa xilli waxaa la yarayn karo oo laga hortegi karo oo la baabi'in karo. waxaana ugu horeeya jagooyinkan in ayaga laftigooda sicir bararku ku dhacay in lasoo qiimo jabiyo oo sicirkooda la jabiyo oo tusaale madaxweyne oo kaleta bal la qiixo meesha uu joogo iyo mansabka uu yahay. warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyada arrimaha bulshada. kala soco Danger Radio. Danger Radio. hoyga wararka dhabta ah iyo isha xaqiiqada dunida. waa tahay madaxweynenimada laftirkeeda haddaan wax kaa weydiiyo maxay tahay jagada madaxweynenimo? maxaase qof lagu doortaa? wallaahi basra maasha allah waa su-aal fiican. laakiin hadda su-aashaas horta waxa shuruudaha ku xiran taas aad bay u dheer tahay. waxaa ila fiican inaan fadhi kale ka dhigano. laakiin hadda waxaan dhihi lahaa madaxweynihii laftigiisa horta bal aan aragno waxa uu yahay. maanta soomaaliya waxaa ka jirta haddadan aan isla hadlayno soomaaliya waxaa ka jirta ugu yaraan 25 madaxweyne. 25 madaxweyne hadda maanta ka jirta. haddii aan gadaal u raacno 20 sano oo lasoo dhaafayna soomaaliya waxaa soo martay tiro 300 ku dhawaad madaxweyne baa soo martay. aan fasiro marka arrinkaas shanta madaxweyne maanta 25 madaxweyne oo maanta ka jirta ama 23 iyo 24 waxay ahaadaanba waxa weeyaan waxa ugu horeysa gobolada ka soo qaad. gobolkiiba waxaa u jooga 3 madaxweyne. Jubbaland kor aan ka soo bilowno. Jubbaland madaxweynaha koowaad waxa weeyaan Axmed Madoobe waa madaxweynaha Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxa weeyaan ninka la yiraahdo Sayid hebel Sayid la yiraahdo. madaxweyne ku-xigeenka saddexaad baa jira waa ninka la dhaho Luga Dheere. marka waa 3 madaxweyne buu gobolku leeyahay. sidaasay gobol walba marka wuxuu leeyahay 3 madaxweyne. waxaa soo dhaaftaa marka Jubbaland markay 3 madaxweyne leedahay, koonfur galbeedna 3 madaxweyne leedahay, banaadirna waxa weeyaan ku-xigeenada maamulka meeyarka waa isku madaxweyne ahaan oo gobol baa loo wadaa waa 3 madaxweyne kale. Hirshabelle 3, Galmudug 3, Puntland 3, Somaliland 3 isku dar intaas waa 7 Soomaaliya 7 min 3 7 ku dhufo waa 21 Soomaaliya madaxweynaha ku dar. waxaa ku dartaa marka kuwa adiga markii lagu daro maalin dhaxan xisaabiyay 25 bay la noqdeen. waa intaas oo mid maahan. waxaa ku xigtaa yaa kaloo madaxweyne loo yaqaanaa. waxaa jooga ilaa iyo 100 ku dhawaad
ayaguna madaxweyne horey usoo ahaa oo dowlad kasta oo tan ka horreysay yaa ka horreeyey ninka la dhaho soo maahan xasan intoo kalea u dhisnayd iyadana gobollada ka ahaa waa intaas ayagana tiradaas ku dhufo laakiin kuwa aad hadda Jubbaland aad ka soo xisaabisay ilaa iyo gobollada kale waa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenyaashii madaxweyne ku-xigeenyaashii marka madaxweyne looguma dhawaaqi kara iyaga laakiin madaxweyne ku-xigeen baa loogu dhawaaqaa maya Soomaaliya looguma dhawaaqo madaxweynaha la dhahaa madaxweynaha saddexaad madaxweynaha la dhahaa aniga xalaydaanaan dhegeysanayay nin la hadlaya madaxweyne ku-xigeenka saddexaad ee Jubbaland luga dheere oo maanta dhan jaal madaxweyne dhahayo madaxweyne sidaasaa la yiraahdaa marka waa madaxweyne unbaa kulli la wada leeyahay kii federaalka marka ugu sarreeyana waa madaxweyne marka keebaa madaxweyne ah waa aradii waa isku dhabaqday dib waxaa u xisaabisaa marka inta jeero ay isbedbedeleen farmaajo waxaa ka horreeyey xasan sheekh intoo kale u tiri waxaa ka horreeyey shariif intoo kale u tiri cabdullaahi yusuf intoo kale u tiri cabdiqaasim intoo kale u tiri marka intaas u tirtirisid haddana waxaa tirisaa inta madaxweyne oo inta isu sharaxday madaxweyne oo murashax madaxweyne soo noqotay mar kasta oo madaxweyneyaal isu bedbedelayaan waxaa murashaxiin ahaa 35 ilaa iyo 27 meelahaas marka 30 soo qaad inta jeero isbedeleen waxaa weeyaan waa cabdiqaasim iyo cabdullaahi yusuf iyo shariif iyo xasan sheekh iyo farmaajo 5 soo ma ahan Somalilandna goonideeda noo sii dhig ayadana 5taas jeer mar walba 30 baa isu soo sharaxaysay anigaan laftigayga ku jiray marka oo markas dariiqada markaa marayo madaxweyne leeyahay laftigayga oo ku jiray waqtiga cabdullaahi yusuf murashax madaxweyne ahaa kulli wixii oo dhan madaxweyne isu haystaan jago madaxweyne hayaan marka aniga haddii laygu daro xataa hadda waa isla leenahay anigu ma dhaho idhaha laakiin ayagii baana dadka ammaan ku siinaynin madaxweyne unbaa la wada leeyahay marka imise Soomaaliya imise qof baa hadda nool oo socota oo magaca jagada madaxweyne haysata waa 300 baan gaaraynaa waa arrin xiiso leh waxaa jirtay inay hees ahayd iyo in uu ruwaayad inay ahayd ma garanayo kowdhe laakiin waxaa jiray barnaamij adiga laga sameeyey ruwaayad inay ahayd aan malaynayo oo la leeyahay hal mar madaxweyne idheh marka waa sheekadii hal mar madaxweyne idheh waa maasha Allah horta Basra waxa weeyaan hadda waxaa mudan inaan xuso inaad soo xusuusisay mar madaxweyne hal ay dhaho waxay ahayd ruwaayad iyo hees ku jirtay bay ahayd oo Mustafa Sheekh Cilmi oo waday laakiin Mustafa Sheekh Cilmi markaas ka hor baa anigu buug ka qoray buug oo la dhaho madaxweynaha la iga dhigo oo hadda yaala oo aan qoray 95tii marka 96dii bay ahayd aan qoray buuggaas baa marka kulli waxaan u malaynayaa in uu ka mid ahaa Mustafa Sheekh Cilmi dadkii aan mar siiyey markii shirka Carta la tagay marka kadib halkaas ka soo qaaday arrin saasay ku ahayd taasi waana run waa dhabta weeye Soomaaliya macnaha kulli qof walba in mar uun madaxweyne la dhaho intaas yaa la isu qof walba milyan u dilay boqolaal u dilay qof walbana dhib u sameeyay dad badan macnaha qof walba yaan dheen inta doonaysa ay dhib badan u abuureen arrinta iyada marka waxa keenaya oo isku soo duuduub waa jahligaasna waxa uu yahay jahliga iyo dhooninimada labadaba isla socdaan waana kala nooc dadna waxay rabaan xukunka oo iska rabaan oo jahilnimo ku rabaan iyaga oo aan macnaha u diyaar ahayn wixii waa hayilka waa rabaa weeye kaliya waa calmaday waa caashiqay kaliya weeye asagoo aan tabartiisa la imaanin qofna waxa weeye waa hunguridoona aad ka coodatid buu isleeyahay oo aad maalka aruursatid waxaa lagu bedeli karaa dadka oo garta in uu qof walba meel ku fiican yahay qof walba waxa uu noqon karaa hogaamiye asaga oo aan madaxweyne noqon taliye ciidan noqon waxba kala noqon ayuu hogaamiye noqon karaa oo muxuu ku noqon karaa wax wanaaga uu hayo in uu ummadda u sheego oo uu baro oo uu tusiyo oo ay dadku uga daydaan sidaas uu hogaamiye ku yahay qof walba waxa uu noqon karaa macnaha qof noqda hogaamiye sama u haga dadka oo ah beerihii nin yaqaana badii waxeed yaqaana qof yaqaana farsamo yaqaana qofkani hadduu soo saaro
maxay too nooc dhar noocoo lasoo xirto oo cusub hadduu soo saaro qofkaas waxaa laga yaabaa magaciisa inuu ku qorto oo loo bixiyo sida kabaha kuwa loogu qoro oo kaleeto inuu qofkan wax soo saaro waxa uu soo saarana uu banaanka soo dhigo. Soomaalidu way fiican yihiin, maskax weyn way leeyihiin. oo hadda shalayto waxaan ka daawanayay aan dhegeysanayay wiil Soomaaliyeed oo Maxamed Hebel la dhaho oo soo saaray baalkan jihaaz tanafuska macnaha oo nagu neefsado coronavirus midka ay coronavirus bahal ah ayuu gacantiisa ku sameeyay oo shaqaysay oo lagu wado. waa wiil Soomaali ah oo laga yaabo inuu iskuulba tegin xataa. marka sidaas oo kale ayuu qofku waxbuu soo saari karaa. baabuur baan annaga soo saari karnaa haddaan aan degno oo xasilno. hadda waa duulaynaa haddaan degno wax badan baan soo saari karnaa, adduunka soo kordhin karnaa. waxa aad soo saartana magacaagaa lagu qori karaa, markaasaa weligeed noolaan kartaa. madaxweyne aan dhicin baad sidaas ku noqon kartaa. qof walba marka isagaaba iskiis madaxweyne fiican u abuuran kara oo aan 4 sano haynine 400 sano jooga. sidaas inuu qofku fahmo oo aan xasilno oon kala foofno. dad tiro yar baan nahay oo Soomaalidu way iska sheegaan ilaa 20 milyan bay iska sheegaan, laakiin anigu statisticsna waa bartay waana ka soo shaqeeyay. tirada koobtii ugu dambeysay Soomaaliyana dadka gacanta ku hayay baan ahaa wasaaradda qorsheynta qaranka. waxay ahaayeen Soomaalidu waxay noqotay 8 milyan iyo bar. waxaana ka soo wareegatay 30 sano. marka 30 sano ama 31 sano 2 sano xataa dheh intaas waxa weeyaan fertility iyo mortality marka la isku feeriyo inta dhimanaysay iyo inta dhalanaysay iyo inta dhooftay wixii oo dhan inta gudaha Soomaaliya maanta joogta 8 milyan weli waa igala yar yihiin. sababta inta banaanka joogta iyo inta dhimatay iyo waxa dhan marka la isku xisaabiyo 8 milyan iska dhac ama hadday cirka gasho Soomaaliya 10 milyan dheh 10 milyan qof walba goonidiisu madaxweyne u noqon karaa isaga oo wax ku takhasusay oo wax bartay oo waxaas meel ka soo saaray. tagada madaxweynaha ninka hayana la ilaawaba oo aan dadkaba laga aqoon magaciisaba la sheeganin. sidaas baan samayn karnaa, laakiin waxay u baahan tahay xasilooni iyo cilmi oo la barto. cilmigaas oo aan ku dhisnayn sida hadda aan ku wadno oo bowsiga cilmi bowsi. waxa weeyaan qof walba wuxuu maqlayaa qof maalin idaacad ka hadlay kelmad uu yiri kelmadii raba inuu isticmaalo si qaladoon oo isticmaalaya wixii cilmigii qof kala sheego raba inuu sheego waana bowsi hore ka sheegaya. marka qaabkaas oo dhan baan dilaya fudaydka aan joojino bas. warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyada arrimaha bulshada kala soco Danger Radio. Danger Radio. hoyga wararka dhabta ah iyo isha xaqiiqada dunida. burburkii dalka soo gaaray iyo dhibaatadii dhacday oo dadkii kalsoonida ka dhumisay ma laga yaabaa inay dhaqankan jago u dirirka lug ku leedahay? lug fiican bay ku leedahay oo kow waxa ugu horeeya horta ay lugta ugu yeelatay maadaama uu sharcigii burburay kala dambeyntiina burburtay qof walba wuxuu ku dhiiranaaday waxa uu rabo. haddana waxa la arkay dad macnaha dad aan weligood wax baranin, dad aan weligood wanaag samaynin oo haddana madax noqday. markaas qof walba wuxuu yiri kaasuba hadduu madax noqday ama madaxweyne noqday ama wasiir noqday anna maxaad u malaysaa waa noqon karaa. halkaas dhiiranaantaasaa nooga timid. laba waxaa timid shaqo la'aantii ka jirtay wadankii baa qof walbaba shaqo inuu raadsho waxa uu ka raadinayaa inuu ama wasiir noqdo ama xogayo joogto noqdo ama xaggaas kale noqdo ayuu doonayaa. jagadii yaa shaqadoonkii baa sidaa la ah. waxaa kaloo jira markaas qofkii oo raba in uu hanti uusan xaq u lahayn oo xaaraan ah oo intaasoo dagaal u galo oo naftiisa u haligo oo hanti soo helo. heer waxaan joognaa maanta qofka Soomaaliga ah haddii halkaa $100 oo xaaraan ah loo dhigo halkaana 500 oo xalaala loo dhigo inuu 100 ka xaaraan tahay door bidayo. heerkaasaan joognaa oo dhan walba akhlaaqdii naga luntay. arrintaas marka ay tahay haddana waxaa dhacday waxaa sii korsa qofku ku kalifaysa qaarna magac raadis oo mansabka uu raadinayo waa magac ka raadi. magacaas baa waxay noqotay marka inuu asagana qof walbaba uu wararkaas halkaas uu la galo. ciladahaas oo dhan baa isku yimid oo aan qof walba maanta uu jago doon ku yahay asagoo aan ka fiirsan jagada aad doonaysid maxaa la qabtaa haddii la yiraahdo ma uu sheegi karo.
waxaan aniga dhagahay ku dhageystay nin madaxweynayaashii soo maray waddanka ka mid ah oo dhahaya alla haddaan fahmay madaxweyne wuxuu qaban lahaa had markii laga qaaday kabacdi yuu leeyahay haddaan fahmaye haddaan gartay anigu madaxweynaha shaqadu qabto waa markii laga qaaday kabacdi taasaan haynaa haddii la rabo magaciisa waa sheegi karaa loo baana horta hogaamiye waxaan u malaynayaa in dadka isku si aanan u fahamsanayn waxa hogaamiyaha uu yahay marka ma noo qeexi kartaa hogaamiyaha wuxuu yahay ereyga hogaamiye marka aniga oo ereygaas kusoo xusuustay magaca jagooyinkii aan tirinaynay waxaa ka mid ah ugaas iyo malaaq iyo kulli waa saas waa hal nooc baan kasoo ugaas kaliyan kasoo qabanay waxaa jira malaaq oo waxaa jira caaqil oo suldaan oo waxaas dhan baa jira oo qof kasta jagooyin haystaa marka midda aan aada u dhibsadaa xitaa oo islaam baa jiro waa aragtay marka waxaan middaan la yaabo waxay tahay caaqil in qof la yidhaaho marka aad qof keliya caaqil tiraahdo macnaheedu waxaa sira dadka kale oo dhan mafhuumul mukhaalafa waxa la dhaha jira shareecada lagu barto waxa weeyaan waxa kasoo horjeedka waa dad kale oo dhan caqli male weeye kan keliya caqli leh waa arrin aad u qaldan oo binaadinimo ka baxa inaa ummad dhan tiraahdo caqli male laakiin hebel baa caqli kale lagana yaabo inuu kii ugu caqliga hooseeye yahay marka arrintaas waxa weeyaan hogaamiye aan usoo dhaadhaco hogaamiye waxa weeyaan qofka dadka samo u bilaaba wanaag buu u bilaabay markuu u bilaabo wanaaggii bay dadka uga daydeen tusaale waxaa weeye qof baa maxay tao reer baa guuraya reerka baadiyaha markay guurayaan qofka soo sahmiyey dhulka markii horeeto qofkaas hoggaan buu noqday waa marka ay awrtii iyo israacayaan oo isdaba socdaanna kan ugu horeeya waa hoggaankii weeyaan meesha u socdo baa loo soconayaa marka waxaa la rabaa wax ummadda u bilow oo wixii aad u bilowday ha kaaga daydeen oo ha kugu daba socdeen hadday tahay ganacsi hadday tahay maxay tahay wax soo saar dhulka wax laga soo saaro hadday tahay beer iyo hadday tahay bad iyo hadday tahay geedo ka shaqeeya kulli waxaa dadka u bilowday oo lagaaga daydo oo sunno u noqda dadka waxaasa waxay noqonayaan wax ah hoggaan inaad u noqotay laakiin dad baad xoog ku haysatay oo garaacaysay oo xukumaysay hoggaan ma ahan waa dad laaye waa dad dilaa waa dad qalato taasoo kaleeto ma ahan hoggaamin ma ahan siyaasadna ma ahan madaxtinimona ma ahan halkaasaan kaga darayaa waxa adduunka ka socdo dadka lagu hoggaaminayo waa wax la barto oo annaga haddana dhaqan waxaaba jira la dhaho hoggaaminta waa loo dhashaaye layskama dhigi karo kow hoggaaminta waa loo dhashaaye lama baran karo waa fikrado aada u qaldan waana fikrado aad u jeedo in loo alifay qaab ah in ummaddaanu aysan weligeed ragaadka iyo rasilnaanta iyo rafaadka ay ku jirto aynan ka bixinin loogu talagalay leadership waxaa la dhaho englishka oo maxay taho annaga waddamadan dunida aan joogno dhalinyarta oo dhan markaan aan wax tababarayna iyo waxaana la baraa qodobada ugu horreya waxay tahay leadership programs baan barnaa sidii ay leader u noqon lahaayeen taa macnaheedu maaha inay madaxweyne noqdaan marka leadership waxaa weeye sidii dhalinyarta ay isku dhex jiraan laftigooda oo mid walba wanaag looga dayan lahaa wanaag intuu sameeyo wanaag looga daydo wax fiican u keeni lahaa qaababkaas baa la barayaa oo noloshiisa adduunka wax u qabsan lahaa yaa la barayaa amase uu hadhow xataa hadday noqoto dad hoggaaminna uu usii gaari karo heer uu jagooyin ku qabto heer uu kusii socdo waxaas dhan laakiin qof kastoo leadership la baray inuu jago soo dowladeed qabto ma ahan waa arrin aad marka nooga hoos baxsan maan ku tusaale qaadano marka intaasoo leadership quality buugaga laga qoray intaasoo maxay tahay maalin walba seminaaro laga wado dadkao dhan haddii leadership la baro kulligood ma madaxweyney noqonayaan inaa intaas ku qoos qaadanay ahayd warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyada arrimaha bulshada kala soco danjir radio danjir radio hoyga wararka dhabta ah iyo isha xaqiiqada dunida maadaama aad taariikhdan wax kala socotid madaxtinimadan maanta lagu tartamaayo ama laysku haysto waqtigii hore sida xilligii xorriyadda la qaatay iyo xilliyadii kaloo kasii horreeyay ma wax jiri jirayba mise waa wax hadda nagu dhashay bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye horta horey way noogu jirtay laakiin horey waxaa jiray waxyaalaha xakameeya waxay ahayd reer walba waxay lahaayeen
ama caaqil ama islaan ama boqor ama ogaas ama malaaq waxaasay lahaayeen. Markay intaas lahaayeen qofkaas wuxuu ahaa mid iska samaysan oo dhaxaltooyo ah. nin baa ah wiilkiisa iska noqonaya, wiilkiisa sii noqonaya. wiilku ama wiil doqon ha ahaado ama mid deman ha ahaado ama mid jiran ha ahaado, saasay ahayd. haddii lacalla mid garaabo aan kici karin baa mid kale loo gudbinayay. sidaasay horta ahayd, waxaasaa xakameynayay. taas laftigeeduna waxay ahayd dee xaqdarro ahayd, waayo qof la leeyahay ninkaasaa dhalay awgiis buu wax ku yahay bis, macnaheedu waa halaysla baabao halaysla burburo. waayo qofkani maba yaqaan waxa laga wado, maba soo shaqaysan, ma oga, ma usoo diyaar garoobin. waxaa dhaaman ninka maanta qabqablaha oo xoogaa wax damcu ku jiraba oo wixii bal kuba fikeraya. laakiin saasay tahay haddana waa laisku dagaali jiray. waxaa dhici jirtay in qabiilo dhan qabiil ay ka taloobaan oo ka cararaan. oo maxay uga cararaan? waxay leeyihiin annagaa reer ogaaskii ahaan lahayn, waana la ka dhacay, marka reerkiiba waan ka baxnay. reero kaley sheegtaan oo dhan kaley beeriyaan. taas caadi weeyaan, way dhacdaa. marka maxay ka bilaabatay? arrin jago isku qabsi bay ka bilaabatay, inuu asna boqortooyo kala abuurto. sidaasoo kalea marka aada laysugu dagdagaali jiray, qabiilo dhanna ay ku kala tegi jireen. laakiin qodobka xanibayay oo boqortooyada ahaa oo la iska dhaxlayo, qodobkaa laftigiisaa qaldanaa. balse wixii oo dhan waxaa kuwaas loogu cudurdaarayaa xilligoodii bay ahayd, wayna ku habboonayd. waayo markaas looma baahnayn hogaamadan waaweyn iyo waxaas. dadku xoololey bay iska hayeen, xoolada iska dhaqanayeen, ma jirin dhibaatooyin waaweyn, ma jirinin. wixii geelley istagaasha iyana odayaal baa xalinayay. maanta la joogo marka madaxweyne iyo maamul baa loo baahan yahay, oo waxaa la rabaa dowladihii adduunka inaan la jaan qaadno oo la soconno. sidaa darteed maantay waxaa weli naga muuqata inaan ku salaynayno tii baadiyaha oo boqortooyadii baadiyaha iyo tan inaan isku qabanayno. mana ahanaya tan waa mid u baahan ilbaxnimo, waa mid u baahan aqoon, waa mid u baahan karti, waa mid u baahan aragti dheer oo qofka uu leeyahay. oo aragtidaasna waa inuu soo bartaa. oo aslanba qof aan wax soo baran waxaan maba xamili karo, mana geli karana, wuuna ku dhex habaabayaa. dhaqanka baadiyaha iyo systemkii ama nidaamkii ku dhisnaa ugaaska iyo suldaanka sidee weli noo saameynayaa ilaa iyo xadkeena u malaynaysaa inuu ku leeyahay nidaamka maamulka ee ka jira magaalada? waxa weeyaan horta dhaqankii baadiyaha waxa uu weli noola socdaa, waayo dadkeena hadda nool intooda badan waa in baadiyo kusoo dhaasheen. wuxuu guuri karaa marka uu qofkan awowgiis magaalo ku dhashay, markaas wixii waa isbedeli karaan. laakiin haddeer wixii raadkiibaa ku jirnaa, qofka asaga laftigiisa ama lo soo raacayay ama geel soo raacayay oo meesha yimid. shaqo xunna ma ahayna, shaqo fiican bay hayeen, laakiin shaqadoodaas ay hayeen oo takhasuskooda ah inay ku socdaan bay ahayd. inay takhasus kaleeto oo aysan warba u hayn ay isku soo dhex tuuraan ma ahayn. balse ugu yaraan inay ku ixtiraamaan bay ahayd kuwii ugu horreeyey ee ku dhex jiray. waa midda kaleeto waxaa nagu dhacday soomaalidu dad uguma xuma in macnaha ay aqbalaan ilbaxnimo cusub. oo waxaa u daliil ah waagii kacaanku dhashay. kacaanku micnihi waa isbedel, waa wixii aan hore oon ku jirno aan ka kacno oo wax kale aadna weeye. marka dhaqankii hore o dhan baa la bedelay, wax cusub baa la sameeyey, waxaa la baabi'iyey wax alla iyo wixii kaaba qabiil ahaa. ogaasow kulli waa mamnuuc bay ahayd. qofka waxaa halkan magaalada hadda ila degan nin iga sheekeynayay oo yiri markaan yaraa iskuulka inta hebel ogaas la yiri in ogaas markii aan waa la yiri adeerkaale muxuu yahay ogaaska aan sheeganaysid? waa ogaaska reerka ciddii noo gee bof xabsi sheekada. maxay tahay magaca ogaas inaad qorato oo iskuulka qorataa dembi ahaa. marka maxaa keenay? wixii dhaqankii hore oo dhan baa laga tegayay, nolol cusub baa la rabay in la galo. ma xumayn, laakiin hal la galo waxaa la rabay laga shaqeeyo ilaa muddo ay socoto. wixii baa markii dee 10 sano iyo xoogaa dhowr iyo 10 sano la waday bay socon weyday oo dadku tii hore soo gocodeen. haddii markaas kacaankaas oo 2 kaclayn 3 kaclayn samayn lahaa oo markaa madaxweynuhu maalan inta ka gadoomo madaxweyne kala imaan lahaa, kacaanka halkii kasii wadi lahaa, ilbaxnimada xaggeeda kasii wadi lahaa, maantoo kale waxaan ahaan lahayn dad kasoo tegay baadiyihii oo magaalo jooga oo macnaha xadaaradda adduunka ilbaxnimada aan la qabsan lahayn. laakiin tii ma dhicin, way naga burburtay, way banjartay. markay meel fiican gaartay banjartay. halkaas waa midda kaleeto dhaqankan macnaha qofka oo baadiyaha laga soo minguurinayo waxa uu yahay
waa dhaqan baadiyihii ku fiicnaa balse aan beledkii ku fiicnaan karinin saa wixii ka jiray baadiyaha beledka kama jiraan dhaqankii duruufihii baahidii wixii la damacii kulli kama jiraan beledkan wax kalaa ka jira beledkan sidii loo maamuli lahaa waxay u baahan tahay marka qof ahlulbeled ah qof beledkii yaqaana nidaamkeediina yaqaana haddii la isku soo dhex qasmo xagga dadkii baadiyihii magaalada kusoo bateen laftigeedii in xataa la isku dhex daro la sameeyo qorshe ah maamulkii baadiyaha iyo maamulkii beledka oo la isku dhex daray in la habeeyo oo wax laga soo saaro wixii oo dhan baa marka waxay u baahan tahay dejin dadkii yaa fariista yiraahda waxa la idin sheegay intaas kaliya loo baahan yahay warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyada arrimaha bulshada kala soco Danger Radio Danger Radio hoyga wararka dhabta ah iyo isha xaqiiqada dunida su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay maxaad ku tilmaami lahayd hoggaanka fiican oo ku dayashada mudan waxaan oran lahaa hoggaanka mudan ku dayashadu waa hoggaanka kow cadaalad bilaaba cadaaladana naftiisa ka bilaaba naftiisana mushaarka uu qaato aan hal shilin ku darsanin 10 baabuur iyo ayna hore iyo gadaal ka soconin iyo 100 baabuur maxay tahay baabuurkiisa kaliya wata gurigiisa ku yimaada maxay tahay nidaamkiisa tartiibtiisa u socda maadaama uu cadaalad sameynayo inuu ogaado inaysan dadkuna ku gardaroonin oo dilaynin waayo marka aad cadaalad samayso aadna geed hoostiis baad seexan kartaa sida asxaabtii iyo ahaayeen qaarkood oo aad markatay sharaf ku noolaan kartaa sidaas darteed qofkaas waxaa la rabaa in uusan marka uu madaxweynenimada laga qaado in uusan wax lacag haysanin oo aan mushaarka la siiyo laftigeeda inuu dadka wax u xeerxeeriyo wax ka siiyo wixii qadadiisa ka badan inuusan qaadan asaga iyo carruurtiisa intay masruufka ka badan inuusan qofkaas qaadan inuusan markaa xaqdarro gelin oo xagga ummadda eex gelinin cadaalad ahaado labadaas baa ugu muhiimsanba cadaalad iyo daacad markaas inuu ahaado oo daacadnimo uu wax ku socdo daacadnimadaas marka waxay u baahan tahay aqoon hadduu qofkii daacad yahay balse uusan si alla si loo sameeyo wixii garanaynin waxa weeye ayana waa dhibaato kaleeto waayo qofkan haddaad tiraahdo gaarigan maanta ii samee oo ay ka daacad tahay inuu gaariga sameeyo balse uusan si loo sameeyo aqoon ma gaariguu samayn karaa waa maya waa inuu aqoonteedii leeyahay waa inuu kartideedii xooggeedii leeyahay ilan gaarigii nin tabar yar oon birtiiba soo rogi karin ma samayn karo waa inuu tabarteedii oo jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed leeyahay daacadnimadii leeyahay cadaaladuna ay bilowga u tahay oo naftiisana uu ka bilaabayo cadaaladda nafta qoyskiisana uu ku xijinayo kaas baa noqon kara hogaamiyaha dhabta ah ee lagu dayan karo ee taariikhdu xusi karto inkastoo nasiib darro ay maanta Soomaalidu taariikhda ku xusaan kuwii dhacay burburiyay baabi'iyay dhaqan xun baray fasahaadiyay kuwaas baa la boonbooniyaa oo lagu magacaabaa garoomadii oo lagu magacaabaa meel kaste oo masaajid loo dhisaa oo wax kasta la gaarsiiyaa waana cuqubado aan ka hareynin ummadda Soomaaliyeed qofkii wax u taray inay meel ay maamusaan qofkii wax u dhimayna ugu yaraan ay faraha ka qaadaan intaas la rabay aad ayaa u mahadsantahay Dr. Qaasin oo maanta barnaamijkeena danta dadweynaha marti inoogu ahaa halkaad kala socotaanna waa raadiyo Danger codka bulshada Soomaaliyeed oo idinkaga soo gala mowjadaha dhaadheer ee kala ah 92.7 iyo 98.3 WCRS FM sidoo kalena aad si toos uga dhageysan kartaan wcrsfm.org Danger Radio podcast iyo baraha bulshada intaan mid kale ku kulmi doono waa anigoo ah Basra Bilan oo idin leh ismaqal dambe xiiso leh